بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وان سلام يا دمان بلشوين تصوماليات ميل الدنيا دعالة دكا سوينتين با وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد السلام جنتلمان oo ku sugan maasha allah Brussels Belgiumka safaaradda dabcan deegaanka walaaladeen Djibouti maasha allah guul iyo gobonimo garabkeena jeexina midig maasha allah waa runtii horta aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay qarannimadayda markastana waan ku faraxsanahay qaran markaan leenahayna qaran kastaba maasha allah hoggaan buu leeyahay oo qaran bilaa hoggaankana allaha raxmaanka baa soo dejiyay oo waxaan ama bulsho aan hoggaan lahayn dee dunida ma shaqayso maantana qarankayga Soomaaliyeed iyo calankayga buluuga waxa hoggaamiya oo sayidkooda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo allaha raxmaanka hadaayo oo ha guuleeyo waxaan kale oo aan runtii ما شاء الله شرقرية بالله عليكم دمانتين وارن سلام يا الله يبارك في مدحوينها قرنك oo isagana runtii aan la kulmay oo sharaf iyo qiimo ii ah aniga oo ku hadlaya afka taageerayaasha iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed mucaarid iyo muxaafidba waayo mucaarid iyo muxaafidba waxa madaxweynaha qaranka oo sayidkii ummadda allaha raxmaanka baana u qadaray fariinna waan uga sidaa fariinta aan uga sidaana waxa weeyaan madaxweyne maasha allah ummadiisu ay u siman tahay ummadiisa oo dhan wada jecel dalkiisana inuu badbaadiyo jecel in ay sharaftii Soomaaliya u soo celiyana jecel qarannimadii inaga luntayna maasha allah jecel anigana waxa ii tahay farxad weyn oo aanan qiyaasi karin allaha raxmaanka waxaan markastaba aan ka baryayaa ee dunidan iyo koonkan abuuray inuu dalkaygii iyo madaxdeedana uu guuleeyo waayo guusha uu gaadho madaxweynaha qaranka iyo madaxda kale ee qaranka farina foolma dhaqde waa guushaydii waa guushaadii waa guusha qaranka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo hadduu الله الرحمن كهجولي وانو جولي صندوق وجوش ومدة وياه ويوحوا السلاح حسنات دي ومدة وحن كلا مرنا بأني لاوين بالشدة الصومالية دون عربية سدوري درع كليهانتي دليل جوشة كمان هلا تد كجيس لويه رج يضمر بقى وانا سلام يا صديق روح ذا بطنيد طبعا دلكينا يوطنية دادوش على ذن واحد درين كينا runtii maalmii dhaweeytay ee xoogaa yara wararkii yara kuturkutaanka ahaa xoogaa la isla dhexmariyay shakhsi waxa ka qaalisan qarannimada waxa idinku taageeraysan waxa weeyaan ee aniga dabcan igu hilinaysan maaha aniga iyo Cabdisalaan iyo midnimo qaran maaha waxa jeceshihiin qarankiina oo guuleysta dabcan maadaama anaguna aanu nahay haddaanu nahay midnimo qaran iyo wadaniinta kaleba dad isu xilqaamay inay ka hadlaan qarannimada iyo sharafta iyo guusha dalkooda dalkiina difaacayseen sharaftiina difaacayseen sharafta madaxweynaha difaacayseen sharafta qaranka difaacayseen ma aha micnaheedu marka aad wadaniinta loo hiilinayo marka madaxweynaha loo hiilinayo marka dawladnimada loo hiilinayo micnaheedu ma aha farmaajo loo hiiliyo farmaajo waxa weeyaan waa shakhsi inaga mid ah لكن سيقرن كمان تحسانة ديسي إساقا أي طبعا الله الرحمن كهو قدري وقول يوغو بنيبو ولا لا رنتي آديات بانو فرحسنا هاي وحن كو فرحسنا هاي سادي لا فرح يسام بان رنتي أنا قلنا آديات وقو فرحسنا هاي وحن كلامر دو كالدونا إن شاء الله تعالى يدونو قوشي كصوبح ذي شركي ميدوغا يوروب إيو طبعا حكومة دينا وقدودين كي مدحوين محمد عبدالله محمد فرماجو إيه رئيس الوزراء هيسقون ذلك بدن يعني المرة إلاوين رئيس الوزراء حسن على خير وايو لبدا هجامية هنتي إيه قلفت جو ذابه هرمرة بقى مدحوين محمد عبدالله فرماجو إيه رئيس الوزراء حسن على خير أيابه هرمرة بقى مركان لا يجابه هرمرة يقوله بقى
waxaanu gala jeedaa madaxdu haddii ay isku si dhinac u wada jeedaan oo aan khilaaf dhex oolin oo wada shaqaynaya kalgacal iyo wanaagu ka dhexeeyo iyagaaba guul ahba. guushana waxaa lagu gaadhaa tiimku markay madaxdu ay iyagu runtii wada shaqaynayaan. xukuumaddana dabcan in mid kasta oo madaxweynaha barbar taagan oo la shaqaynaya annaguna waanu jecelnay, waanu la shaqaynana, waayo shaqadii qarankay hayaan. waxba walaalayaal minid madaxweynaha maasha allah khudbadu maalinta dhawatay inoo jeedinayana guul iyo gobonimo uu ku mahadsanaa, xaqiiq baanay wada ahayd. intaas oo dhan oo araara waxaan horto aan caawa halkan usoo fadhiistay anigoo faraxsan oo dhinacayga midigna u fadhiyo walaalkay maasha allah allah raxmaanka isaga iyo wadaniinta kaleba hadaayo, mana kala xiisa jabayno caawa insha allahu tacaala. barnaamijkuna inoo soconaya waxa weeyaan dalal oo ah dalalba markaan ka imaado bahda midnimo qaran, dhammaantiin midnimo qaran meelaa ku sugantihiin, nabad iyo nolol meelaa ku sugantihiin. abwaanada walaaladay wadaniyiinta rag iyo dumar bale ee aan ka xusayo jamiila jaamac jibriil, cabdifataax boodhari, duqbilow iyo bahda midnimo qaran oo kale. waxyaabaha kale la yaab kalaha ee dabcan ka dhacday xafladii madaxweyne mideeye. marka la leeyahay mideeye waxaana isugu nimi waa madaxweynihiisii, asxaabtii kale ee aan isturtuuri jirnay, shiidadka isku yaro turtuuri jirnay ee iyaguna dabcan soomaaliyeed ee wadaniinta ahaa, waxaan leeyahay muwaadiniinta ahaa. laakiin xoogaa ee raggii daas wada garanayseen waa dadkii oo lays wada salaamayo oo laysku wada faraxsan yahay. haddayna asxaabteedii reer holan maasha allah, hadduu yahay dabcan waan sheegaya, hadduu yahay daahir calisow, hadduu yahay shiino culay, haddaanu nahay dhammaantiin waayo waxbaa naga wada dhexeeya, qarankaa naga wada dhexeeya, xoogaa aan ku yara kala doonaano. waxay muujinaysay xafladii madaxweynuhu uu maasha allah maalinta dhaweyto shacabka uu ugu qabtay, ama shacabku golihii laysugu wada yimi ee the hotel ee madaxweynuhu khudbadda ka jeedinayay, meel aan odhan karo khayr baa ka dhacay. waayo dayra mihirdiin maasha allah wax xitaa cid iskhilaafaysa, dad wada faraxsan oo isku wada faraxsan, mucaarad iyo muxaafidba, carab baa xitaa nala joogay. waan salaamayaa dhammaantood, waan wada salaamayaa ummadda soomaaliyeed meelaa ku sugantihiin waan wada salaamayaa. nin kastoo qabiiliyana qarankaa ka qolo adag, nin kastoo qabiiliya madaxweynaha qaranka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ka qolo adag. aniguna waan ka qolo adag ahay, iska dhaaf qabiilo qarankeena oo idil qol yar baan u haystaa. waxaan aad iyo aad baan u faraxsanaa caawana, shucuurtooda aad bay u kacsan tahay. waxaan leeyahay bulshada dhammaantiin waa waajib weeyaan caawa inaad barnaamijkan faafisaan guul iyo gobonimo. waxa kaloo iyadana aan u mahadnaqayaa safaaradda jabuuti, dabcan inkastoo walaalkii u dayn doono, iyo mas-uuliyiintooda. qodobadii weli way noo soo socdaan. safaaradayda soomaaliyana maasha allah iyo safiirka mar labaad baan bartan ka salaamayaa. khilaafkii iyo tashuushkii kolley raggu iyagoo haddana isku si u socda ayaa mararka qaar laysira iskhalad tashuush yar ama khilaaf yar soo kala dhex gala. cafiye masaamax mar kastaba. safaaradeydina waanu sacafinay guul iyo gobonimo, waana safaaradeydii, safiirkuna waa safiirkeennii, waana safiirkaygii, waana kaagii maasha allah. isaguna hawl qaran buu wadaa. howlwadeenada kale safaaradana waxaana jecelahay dalkaygu inuu dhaqaaqo oo safaaradaha dalka oo dhanba ay wada guulaystaan, madaxdeedana guulaysato. waan idin dambaysiinayaa qodobadii shirka oo iyaguna maasha allah qurux badnaa. waxaan kusoo dhaweynaya walaalkay dalal, soo dhawaada. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين فرحات، هبين رينا، هبين مدنمو، هبين برواقو، هبين رجادة أمد الصوماليات، هبين ضدك إيو أمد الصوماليات بيلكستو أي شوغانبا أنو رجيري نقول إيو برواقو إيو هرومر إيو نبض إيو نرول إيو برارة أيانو إدكو سلامينا. ummadda soomaaliyeed beel ay joogtoba ilaahay subxaana watacaala marka ugu horeysaa ka dhigo ummad insha allahu tacaala kabata oo insha allahu tacaala kabata oo xoogooda iyo laxaadkooda iyo muruqooda dib insha allahu tacaala ilaahay u muujiyo. insha allahu tacaalana way imaaneysaa, dariiqeediina waynu haynaa. maxaa yeelay haddii ilaahay ku idmaaya hogaanku hadduu hagaagsan yahay ama ummadu hogaanku u hagaagsan yahay ama hogaanka ummadda uu toosan yahay, ummaddaas waxay noqotaa ummad quwi ah, waxay noqotaa ummad cisi leh, waxay noqotaa ummad karaamo leh, waxay noqotaa ummad sharaf leh, waxay noqotaa ummad haddii ilaahay ku idmaayo tilmaaman dunidana maamuus iyo meeqaam ku leh.
kaalinteedana ka qaadata insha allahu tacaalana dariiqaasaanu haynaa ilaahay baynu ka rajaynaynaa kalsooni intaa badan oo haddii ilaah ku idmahayo aynu qabno oo ummadda soomaaliyed ay maanta qabaan oo ay ku qabaan haddii ilaah ku idmahayo madax calaamadahaas ay ka muuqatana waa jiraan insha allahu tacaalana waanu gaari doonaa haddii allah wadale ogolaado dhammaanteen marka ugu horreyso horta bishaaradaas aynu isugu hambalyayno kadibna aynu ku ducaysano kadibna haddii ilaahay ku idmahayo aynu gaarno haddii ilaahay ku idmahayo guusha iyo kabashada intaasu waa salaanta guud ee ummadda soomaaliyeed aan usoo gudbinaya iyo ducada markii intaa aan ka gudbo waxaan si qaasa ugu mahad celinayaa walaalkii gentleman wadaniga soomaaliyeed ee aynu ka wada tirsannahay bahda midnimo qaran aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo sidii howlkarnimada lahayd sidii haddii ilaahay ku idmaayo wadaniyadda lahayd sidii haddii ilaahay ku idmaayo muujinta iyo kartida lahayd ee haddii ilaahay ku idmaayo uga qeyb qaatay soo dhaweynta madaxweynihiisa jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo guud ahaan wafuudii soomaaliyeed ee danaha soomaaliyeed halkan u timid caasimadan brussels ee dalka belgium u timid kaalintii uu ka qaatay aada iyo aad baan uga mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guud ahaan madaxdii soomaaliyeed ee halkan isugu timid ee u timid danta iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed u timid dhammaan waa u mahad celinayaa qaybahooda kala bedelan siday u ahaayeen min madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed xildhibaanadii soomaaliyeed golihii wasiirada ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed maamuladii madaxdii maamulada gobolada soomaaliyeed dhammaantood aada iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa sida haddii ilaahay ku idmahayo wadaniyadda iyo haddii ilaahay ku idmahayo daljacaylka iyo haddii ilaahay ku idmahayo haddii ilaahay ku idmahayo damqashada ummadda soomaaliyeed iyo jacaylka loo qaba kabashada ummadda soomaaliyeed iyo inaynu noqono ummad sharaf badan danihii aynu uga shaqeynayna halkaan isugu haya keenay aada iyo aad baanu dhammaantood uga mahad celinaynaa soomaaliduna waxay tidhahdaa soomaalida wa yaala dhihine xadiis baaba ahba haddii ilaahay ku idmaayo qofka aan aadanaha u shukrin kuma shukriyo rabbigii subxaanahu watacaala kuma shukriyo dhammaan waxay ahaayeen mas-uuliyiin soomaaliyeed waxay ahaayeen haddii ilaahay ku idmaayo mas-uuliyad ka u yimid haddii ilaahay ku idmaayo danta iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaanu leenaha dhammaantii waa mahadsantihiin haddii intaa aan ka gudbo si qaasa waxaan doonayaa caawa inaan ugu mahad celiyo dowladdanada aynu walaalaha nahay ee dhigeenna ee aynaan garab kala lahayn ee nala dhashay ee nagu dhiigaa ee nagu dheecaanka ah ee mar walbaba garabka yaga taagan ee la-aantood aynaan jiri lahayn ee haddii ilaah ku idmaayo badbaadada dadka soomaaliyeed ay maanta ku taagan yihiinna ah waa dalka jabuuti ee ina garab yaalla garab waa kan walaalkaabay soomaalidu tiraahdaa gobonimo garab waa kan walaalkaabay soomaalidu tiraahdaa waxaan marka horeeta halkaan salaan uga dirayaa guud ahaan shucuubta reer jabuuti ee walaalaheena iyo madaxweynahooda jamhuuriyadda reer jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle aada iyo aad baanu haddii ilaah ku idmaayo halkaan uga wada salaamaynaa guud ahaan si qaasa waxaanu doonaynaa caawa inaanu ugu mahad celino ambashator cumar haddii ilaah ku idmaayo siciid cabdi ambashatoorka haddii ilaah ku idmaayo u fadhiya dalkan belgiumka caasimadiisa brussels safaaradda haddii ilaah ku idmaayo reer jabuuti ambashatorka aada iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaan sidoo kaleeto mahad aan la soo koobi karin isagana aanu u celinaynaa mudane ridwan cilmi ismaaciil oo isagu ah haddii ilaah ku idmaayo consularka safaaradda oo aada iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad haddii ilaah ku idmaayo kaalin libaax leh uga qaatay haddii ilaah ku idmaayo shirarkii haddii ilaah ku idmaayo dadka soomaaliyeed wufuuddii soomaaliyeed marxabeyntooda soo dhaweyntooda galgacalkooda walaalnimo umuujintooda garab istaagooda la sheekaysigooda martiqaadkooda soo dhaweyntooda iyagoo u qaba jacayl haddii ilaahay ku idmaayo dowlad iyo qaran soomaaliyeed oo xoog badan oo kuwii haddii ilaahay ku idmaayo ay iskaashan lahaayeena in haddii ilaahay ku idmaayo ay dhalato ay laabtooda ku weyn tahay aada iyo aad baanu u leenaha waa mahadsantihiin waxaan sidoo kale si qaasa uga mahad celinayaa martiqaadka ay noogu sameeyeen aniga iyo walaalkay haddii ilaahay ku idmaayo wadaniga weyn ee soomaaliyeed ee aynu ka wada tirsannahay bahda midnimo qaran mr gentleman ay nagu casumeen nagu shafreen na daagaameeyeen na dejiyeen safaaraddii walaalaheen oo aanu caawa idinkala hadlayno aada iyo aad bay u mahadsan yihiin walaal baa laga helaa soomaaliduna waxay tidhaahdaa xiniyo kuwa kugu yaal maahane waa kuwa haddii ilaah ku idmaayo dhiggaa ku yaal bay soomaalidu tirahdaa dhiggeenna waa haddii ilaah ku idmaayo nala dhasho oo dhiiggeenna dheecaankeenna
aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaan halkaan haddii ilaah ku idmahay aad iyo aad iyo aad iyo aad aan uga mahad celinaya caawa waan doonayaa inaan tilmaamo howlwadeenadii kala bandelnaa ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed ayaan qaarkood halkaan uga mahad celinaynaa iyo guud ahaan waan u mahad celinaynaa raggii howlkarada ahaa, raggii haddii ilaah ku idmahay mas-uuliyiinta ahaa, raggii dulqaadka lahaa, raggii haddii ilaah ku idmahayo geesiyada ahaa, raggii haddii ilaah ku idmahayo haddii ilaah ku idmahayo muujinaya haddii ilaah ku idmahayo shaqo wanaagga iyo howlkarnimada ee haddii ilaah ku idmahayo ummadda soomaaliyeed iyo haddii ilaah ku idmahayo kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed gacanta ku haya aad baan ugu mahad celinaynaa. gaar ahaan mudane haddii ilaah ku idmahayo cali yaasiin aadan gurbe oo runtii ahaa howlkar ahaa, dulqaad lahaa, haddii ilaah ku idmahayo ixtiraam lahaa, haddii ilaah ku idmahayo dhimrin lahaa, haddii ilaah ku idmahayo lahaa intaas oo dhan oo haddii ilaah ku idmahayo aan odhan karo waa wuxuu ahaa geesi dulqaad leh, geesi dhimrin leh, geesi shaqo yaqaan ah, geesi haddii ilaah ku idmahayo karti leh, geesi haddii ilaah ku idmahayo muujiye haddii ilaah ku idmahayo hawl loo baahnayo howlkarnimo ah. waxaan sidoo kaleeta u mahad celinayaa agaasimaha haddii ilaah ku idmahayo warfaafinta ee xafiiska jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed ee madaxweynaha xafiiska madaxweynaha mudane cabdinuur oo isaguna ahaa howlkar aad iyo aad u dulqaad badan, jilicsan, nin haddii ilaah ku idmahayo haddii ilaah ku idmahayo hufan ah, nin haddii ilaah ku idmahayo faham badan ahaa, nin haddii ilaah ku idmahayo ahaa haddii ilaah ku idmahayo lagu soo hirto. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahad celinayaa isagu ninka haddii ilaah ku idmahayo marnaba aan la iloobi karin kaalinta haddii ilaah ku idmahayo muuqata haddii ilaah ku idmahayo qaatay haddii ilaah ku idmahayo shaqo yaqaanka ah ee aadka iyo aadka haddii ilaah ku idmahayo protocolaatiga u ahaa mudane cali haddii ilaah ku idmahayo cali daahir ciid sidoo kaleeta aad iyo aad baan ugu mahad iyo guud ahaan saaxiibadii kaleeta ee haddii ilaah ku idmahayo la socday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed ee howlwadeenadiisa ahaa sida haddii ilaah ku idmahayo mister haddii ilaah ku idmahayo ninka la yidhaha sabtow oo isaguna ahaa haddii ilaah ku idmahayo nin haddii ilaah ku idmahayo howlkar ah mudane sabtow sidoo kale aan ugu mahad celinaynaa. waxaan kaloo u mahad celinayaa ninka la yidhaahdo inkastoon magaciisi liqay haddii ilaah ku idmahayo ahaa gobonimo aad iyo aad buu mahadsan yahay maasha allah. aniguna sidoo kale waan soo dhaweynaya horta bulshaweynta soomaaliyeed waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad. waa cabdisalaan gentleman iyo dabacan bahdii midnimo qaran iyo nabad iyo nolol oo xasaanada iyaguna sida taageerayaasha qaranka iyo dowladda soomaaliyeed. waxaan caawa nasiib u yeeshay oo igala qeyb galaya barnaamijka maasha allah walaalkay dalal isagana mar labaad baan aniguna ku celinayaa. waxaan bartan uga hambalyanayaa guud ahaan bulshaweynta walaaladeen reer jabuuti iyo madaxweynaha qaranka jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo marwadiisa. sidoo kale waxaan markastana u duceynayaa madaxda qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan madaxda geeska africa iyo madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaareheena madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre. howlwadeenadii iyagana waxaan mar labaad ku celinayaa guud ahaan dhammaantood waan wada mahadnaqayaa. gaar ahaana ninka la yidhaahda yaasiin maasha allah yaasiin cali waxaan leeyahay cali yaasiin sidoo kale cali cabdiciid agaasimaha warfaafinta iyo madaxtooyada cabdinuur waxaan leeyahay guul iyo gobonimo laysma caasiya. raggaasu maasha allah bulshaweyntii bartaa madaxweynaha kusoo booqanaysay ugu timi si gobonimo leh oo sharaf leh oo xilkasnimo leh ayay dadka ugu dhimranaayeen oo u soo dhaweynayeen. guul iyo gobonimo maasha allah. waxaan usoo daadegi doonaa haddii allah raxmaanka inagu simo shirkii iyo qodobadii aan halkaa kaa dhex galo walaalkeen batri oo aan la iloobi karin. batri waa haddii ilaah ku idmaayo waa cameramanka haddii ilaah ku idmaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed. walaalkeen batri oo isagu ahaa howlkar aada u muuqday oo aada iyo aad haddii ilaah ku idmaayo usoo dhaweyn fiicnaa oo aada iyo aad haddii ilaah ku idmaayo bulshada soomaaliyeed ula shaqaynayay. waxaan leenahay waad mahadsan tahay adiguna walaal aada iyo aad baad u mahadsan tahay. guul iyo gobonimo maasha allah. dhammaan madaxdii kale bartaa timi ee qaranka soomaaliyeedna waxaan leenahay guul iyo gobonimo. hadday maadaxdii maamul goboleedada waanan u duceynayaa allah raxmaanka tawfiiqda ha waafajiyo amiin guud ahaantood. sidoo kale
masta faysal cali waraabe isagana waxaan leeyahay allah raxmaanka tawfiiqda waafajiyo iyo maamulka hargeysa ama somalilandba waayo waa soomaaliyuun madaxweynahooduna waa madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo professor cali khaliif garanesna waxaan leeyahay dadkuna yaan waxba dacayad laga sameynin xasaasiyadda aynu joojino waayo madaxweynahoodu waa madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo taasun baana xaqiiqa isbedel baana ka socda east africa iyo dalkeeni duniduna maanta waynoo soo jeedaa nin weynina wadkiisa waa yaqaanaa way ogiinoo way la socdaan faysal iyo muuse iyo cali khaliif galeydh iyo brofesoradii iyo waqooyi iyo koonfurba maanta inay soomaaliya soo kabanayso guuleysanaysana waxaan dul istaagi doonaa haddaba maxaa uu kaga duwanaa shirarkii hore ee dabcan midooda yurub inoo qaban jireen ama arrimihii hore ee ugu yaboohi jireen soomaaliya iyo maanta waxay ku kala duwan yihiin horta maanta isbedel baa yimi waxaa yimid dowlad qab leh oo xisaab celin leh oo wasiirkeeda maaliyadda prime ministerku uu ku shaqaynayo dabcan siyaasadda madaxweynaha mar kastaba guusha iyo guuldaradaba dabcan allah raxmaanka ma guuldareeyo waanu ducaynaynaa waxay ku soconayaan dhammaantood inkastoo diric kale ahaantii dalal guusha kama helo dee dadkaa gees lugiyi siyaasadda madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayay dhammaantoodba ku wada shaqeynayaan allaha guuleeyo waanay ammaanayin kulligood wasiiradu shirkani dabcan midowda yurub awal hore waxayna siin jireen wuxuu ahaa wax la yidhaahdo humanitarian markaan af soomaali ku sheegana bila aadantinimo maanta laakiin wuxuu kaga gedisnaa waxaabii midowda yurub inoogu yabooheen wuxuu ahaa development horumarin from bank to bank ah oo toos banka soomaaliya oo mashruucyo la taaban karo soomaaliya loogu qabanayo waxaan tusaale idinku soo qaadan karaa oon sambal ama idinku sharaxi karaa waxaad xasuusanaysaan baanu malinayaa dadkeenii maasha allah dhammaantiina taariikhda dib u baadha dhalinyaroy mashruucyadii mareerley oo kale ay dowladihii horumarkaynugu sameynayay sida qatar oo kale haddaanaan khaldanayn dowladaha carabta iyo ama dunida oo kale toos baa baanka soomaaliya loo soo dhigi jiray dadna toos baa wax la taaban karo tanjibal oo la qaban karo waxaan leeyahay wax la taaban karo oo macquul oo muuqanaya ayaa loogu mashruuciyo loogu dalka iyo dadka Soomaaliyeed ma anfaco dalka iyo dadka ma anfacaya marka maanta lacagtii lagu yaboohay iyo maalgelintii halka loogu yabaahay dowladda Soomaaliya waxa weeyaan waa horumar waxa isweydiin mudan maxaa hadaba maanta keenay sidoo madaxweynuhu ka dhawaajiyay dunidu inaguna waanu baahanay iyaguna waanu baahan waxa baynu isdhaafsanayn ciyaar dowladda Norway baasaboorka Soomaaliya runtii inkastoo waxyaabaha diblomaasiga ee wanaagsan loo ogol yahay ee positive-ka ee dalka wax taraya in la sheego waxyaabaha qaarna wixii top secret-na dabcan guul baan leenahay waad fahmi doontaan arrimo iyagana anfacaya dalkeenana anfacaya ayaa ka dhex muuqday East Africa iyo dalkeena iyo guud ahaan Afrikaba maanta Europe waxay soo jeedaa oo focus-ka indhaha ku haysa waa Africa gaar ahaanna dalkeenu dhul istaraatiiji ku yaala uu dihan yahay waa dalka aan khayraadkiisa iyo macdantiisii dhammaantiisba waxayna ana kalluun baas war kalluunkeenu waa daf shidaalkeenu waa daf istaraatiijigeenu waa daf inaga iyo Djibouti iyo East Africa iyo dhammaan marka iyaguna interest bay leeyihiin inaguna interest in exchange wax baynu isdhaafsanana marka maanta dunidu waxaanay ku timi waxaad leedahay budaqabay biiqo isu baahay absolutely wala isu baahay waxaanay ku timi oo ay arkayaan madax iyaguna active allaha guuleeyo dowladda indiriska Djiboutina waxaan leenahay guuleyso Dr. Abiy xitaa kacdoonadan maanta ka socda sida madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo xukuumaddiisa oo la dagaalamaya baa dabcan isagana inkastoo siyaasadda dalka aan jecelnahay inay guuleysato waxaana dabcan waan isku xidhnay horumarkuna uu isku xidhan yahay isagaba kuwa la dagaalamaya waa qaar horumarka diidan waa ninka Dr. Abiy isaguba qayb buu ka yahay horumarada Soomaaliya ka socda maantana wuxuu arkayaa Soomaaliyana in rag clear ah oo aan dambiile lahayn oo aan cidna layn inay hogaaminayaan dunidana la haysto soo jeeda lana dhil garan karo Allah raxmaanka baa isku soo beegbeegay Masar waa heshiiska la galay dadka Eritrea idinka arkay iyagoo farfaraxsan ma sha Allah waa markii koobaad 20 years the first time Ethiopian airport ama Ethiopian fly ama Ethiopian airline ay ka degto meesha la yiraahdo Eritrea Asmara marka hilaacba biligidi horaan u sheegnay karaamadeedii baa la socota
duniduna karaamadeennay soo raacaysaa ummadda soomaalidaysa cafiya laydh caafimaad baa socota dalka soomaaliyana hore u socon dib uu dhaqaaqay dibna usoo noqon maayo waxaana nasiibka allaha raxmaanka u siiyo xukuumaddan wax yaroo meelaha laga hadlana duniduna maanta way noo soo jeedaa waa sababta way garanayaan faysal cali waraabe iyo cali khaliif galeydh iyo way la socdaan walaaladay deegaankii dabcan markii horena horseed baanu ahayn midnimadii soomaaliya maantana insha allahu tacaala waxaa naga soo dhex bixi doona gobonimadii soomaaliya iyo sharaftii soomaaliya haddaan anoo ku hadlaya kun af baan ku hadlaa mar waxaan ku hadlaa suldaanka dhalinyarada ummadda soomaaliyeed oo dee soomaali baanahay marna waxaan ahay kun nin baanahay marna reer waqooyi baanahay marna reer burcaanahay marna sheekh bashiir baanahay marna faarax oomaar baanahay marna sayidkii baanahay oo wadani baanahay marna dalkaygaan jecelay iyo sinjiga guud ee soomaalinimo waanu iman doonaa insha allahu tacaala muqdishona madax meel ka sarreyso la salaaxaa ma jirto waa madaxii iyo wadnihii ummadda soomaaliyeed nabadgelyadeedu waxay anfacaysaa ka jooga lowyacaddo iyo ka jooga meesha la yidhaahdo afmadow ama meesha la yidhaahdo beled xaawo iyo ka jooga allahu mustacaan boosaaso iyo ka soomaaliya ilaa ka etoobiya joogay anfacaysaa waynanu guuleysanana insha allahu tacaala waa guuliyo gobonimo markaa walaalayaal shirkan wuxuu ahaa shirkii midaynta tashuushkuna wuu baxayaa nin kastoo israahdo sidii madaxweynuhuba sheegay tareenka maanta la wada dhaqaajinayo israahdo qabsana tareenku wuu jiiraya wuu harayaaba insha allahu tacaala wixii tashuush wadana allah raxmaanka ha naga reebo waxaan u daynayaa aan ku ila wareejinayaa walaalkay qodobadii kasoo baxay shirkuna saasuu ahaa ummadda soomaaliyeed samir baa haddaba loo baahan yahay Roma was not built one day waa inaanu samirno dulqaad iyo samir iyo dhibar la nimaadno soo dhow master dalal waa mahadsan tahay walaalkay gentleman aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar kale waan u mahad celinayaa shacbi weynaha soomaaliyeed ee haddeertaan ila daawanaya iyo inta ku xirmi doontay inta sii aragti doontaba intaa markii aan ka baxo xaqiiqdii dardaaran baan insha allahu tacaala anigu kusoo qatimi doonaa oo dadka soomaaliyeed aan u jeedin doono waan kusoo qatimi doonaa laakiin wax yar aan idii taabto in haddii ilaahay ku idmahayo dowladdan ay raxmad wadato waxaad ku dareemaysaa the hotel halkii uu deganaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed waxaa isugu yimid mucaarad iyo muxaafid baa isugu yimid kuwa isu caraysnaa kuwa aan is arki karin kuwa aan ismaqli karin kuwa aan is salaami karin kuwa isu hanjabi jiray kuwa haddii ilaahay ku idmaa hawada hanjabaad isaga marin jiray intaba way isugu yimaadeen haddana waxyaabaha cajiibka waxa weye meeshaa ka dhacay waxay tahay cajiibka oo u baahan in la tilmaamo ay lagama maarmaanka tahay waxaa ka mid ah halkaa iyada ah deera kuma hardin laba isma haddii ilaahay ku idmaa maan dhaafin kulligeed waxay ka midaysnayd qarannimo kulligeed waxay ka midaysnayd marxabo mid walbaba wuxuu marxabeynayay midka kaleeto mid walbaba midka kaleetuu shafka gelinayay mid walbaba midka kaleetu haddii ilaahay ku idmaayo soo dhawaysanayay iyadoo haddana nin walbaba fakarkiisa iyo aragtidiisa uu hoosta ku haysto waa waxyaabaha cajiibka ah oo haddii ilaahay ku idmaayo ka dhacay madashii bay ahayd ka dhacay madashii uu deganaa madaxweynuhu ama the hotel braslis ka dhacay bay ahayd halkaa intay isugu timid qeybaha kala bedelanahaa ee aan idiin tilmaamay oo hore idinkugu soo tilmaamahayo ismarxabeyn bay haddii ilaahay ku idmaayo lahaayeen iga halaw ninba waxaa la soo qoray gentleman daahir calaso waa run saaxiib waa muwaadin soomaaliyeed halkaa madashii waan isku soo cafinay laakiin qarannimada laga wada shaqeeyo calasow keliya ma aha waa la badnaa noocyo badan baa lalahaa daahir calasow adigu soo qaadatay laakiin daahir calasow waa muwaadin soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed buu wax ku leeyahay ummadda soomaaliyeed weeye waa wiil soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed iyo calanka iyo ciiddu haddii ilahay ku idmaa wax ku leeyahay aragtidu waa meesheeda madaxweynuhu waa madaxweynihiisii waa tegi karaa waa arki karaa waa haddii ilahay ku idmaa u dhowaan karaa waa haddii ilahay ku idmaayo sheergarayn karaa marka daahir caliso wax ku gaara ma jiraa sababaa usoo qaadatayna oo gaarana ma jirto laakiin waxaan kuu sheegaya madasha wixii ka dhacay bay ahayd oo haddii ilahay ku idmaayo muxaafid iyo mucaaradba meeshii midaysay bay ahayd ee isugu keentay qarannimo soomaaliyeed iyo calan soomaaliyeed iyo ciid soomaaliyeed iyo madaxweyne soomaaliyeed isu keenay buu ahaa intaas oo dadku fahmada noocaasa u wada yeeshay bay ahayd
gobonimo aad iyo aad buu mahadsan in yar geesama gaagaxo waxaan qirayaa kulley horta magac bilaash ma baxo ummaduna karaamayseetaan ummadda soomaaliyeed baa waxay tidhahdaa had iyo jeer madaxweynaha qaranka mideeyay dhahdaan ra-iisul wasaarahana madaale labaduba waxay ku sifaysan yihiin magacyada bulshada soomaaliyeed oo bixisay mideeya waa kaasoo annagoo midaysan oo aanan qofna qof deerna deer hirdiin ayaa halkaa kulankii iyo madashii iyo marxabeyntii iyo gobonimadii ay kusoo dhammaatay waxaan rajeynaya insha allahu tacala allah raxmaanka inuu saa noogu wado ra-iisul wasaaraha qarankuna waa madaale isaguna intaa hawl qaran unbuu waday waa guuliyo gobonimo walaal in yar baan rabaa oo kale inaan ku daro dabcan iyaynaan waxba ku degdegin madaxweynaheena qarankaba wanaagga had iyo jeer iyo waxa wanaagsan waxaa la dagaalama dib u socod iyo dowladiid iyo horumar diid iyo midnimo diid degta abiye ilaa hadda wuu gudbadeeyey maalintii dhaweed markii uu madaxweynaha eritrea ka noqday wuxuu yihi kabriidka hala joojiyo ragga qarafka daaraya ama kabriidka isaga laftigiisa waanu xilligana wuxuu yihi waa la dhaafay waqtigii dagaalka iyo waa old fashion wax noocaas waa laga gudbay buuri dabcan dadka amxaariga yaqaanaana way noo sharaxi doonaan markaa miyaanay u muuqan karin isaga laftigiisa in lala dagaalamayo kuwii doonayay dib u dhaca iyo nacaybka bulshaweynta east africa ku nool hadday tahay kenya ethoobia soomaaliya sidii madaxweynaheennaba dabcan allaha raxmaanka wax badan waynu isla ogeyn haddaynu nahay dadka dowladnimada iyo qaranka jecel iminkadaa laftigeeda cadowgu muuseexana markasta uu soo jeeda inaguna in markasta indhaha ku hayno dowladdeena ay hogaaminayaan labadaa maanta allaha raxmaanka inoo soo diray ha guulaystaane mishino badan baa loo dhigay iyo mishino fara badan waxaana la dagaalamayay isbedelka iyo horumarka iyo ragga dunida la jaan qaadi kara ayaa lala dagaalamayay oromadana waxaan leenahay anagu raalli kama nihin haddaanu nahay nabad iyo nolol iyo midnimo qaran mar kasta waxaan leenahay bulshada oromada waryaal la isu keen dirin anaguna soomaali baynu dagaal iyo colaad iyo nacaybna waxba ka faa'iidi maysaan anaguna ka faa'iidi mayno warooy dantiina garta anaguna soomaali waxaan leenahay idinkuna inaguna aynu isjeclaano markaynu isjeclaanayno mid noqonayn midowno ayaynu cid kastaba iska celin karnaa guliyo gobonimo waxaan u daynayaa uga baxaya insha allahu tacaala mar labaadna walaal dabcan kule dadka qaar baa hadda ii soo galay waxaan dhextaal uga dhigayaa mar kastaba maanta dunidu iyada inoo soo jeeda qodobadii kasoo baxay shirkii dabcan waxa ugu importansanaa nuxurkuun baynu ka qaadanaynaa awal hore waxay ahaan jirtay caawin oo kale ama humanitarian hadda waxay development wixii dowladdeena loogu ballan qaaday dee dabcan yurubiyankuna way inoo baahan yihin inaguna waynu baahanay dunida oo dhanna way soo wada baahantay markaa maanta waa horumar waxyaaba shaqa abuur hadday tahay warshada hadday tahay wadooyin hadday tahay waxyaaba la taaban karo ayaana dalka loogu qabanaya waana la aaminsanyay maanta madaxdeena sababta lagu aaminayna waa wax laga arkay iyo transparent kusoo dhawo masadalal intaa waxaan ku darayaa soomaalida waxay ku mahmaadaa budaqaba iyo biyoqaba waa isu baahayeen dadka soomaaliyeed haddaynu nahay ma nihin ummad faqiira ma nihin ummad haddii ilaha ku yidmahayo qaxootiya ma nihin ummad haddii ilaha ku yidmahayo baaba ah ma nihin ummad haddii ilaha ku yidmahayo saxaro ku nool waxaa ilaahay ina dejiyey oo ina makiniyey geeska africa halka dunidu indhaha ku hayso halka qaninimada dunidu ay taallo halka haddii ilaah ku yidmahayo dunidu ay isugu soo biyo shuban doonto ilaahay baa inagu beeray oo ina dejiyey laakiin muddo 30 sannadood ayaan waxaanu soo taagnayd oo indhahayaga iyo indhahayaga iyo soo jooga taariikhdayadaba aynu ku dhex noolayn duni damiir beeshay iyo dal gablamay waxaan oran karo duni damiir beeshay iyo dal gablamay waxaan oran karo yacni duni damiir beeshay marka aan ku leeyahay duni 30 sannadood annaga na eeganaysay oo na fiirsanaysay oo nagu fiirsanaysay dhibaatada oo nagu fiirsanaysay colaadda oo nagu fiirsanaysay qaybsanaanta oo nagu fiirsanaysay haddii ilaah ku yidmaayo dalkayaga iyo dhibaatayntiisa oo nagu fiirsanaysay dhibaatada annagu aan isku hayno iyo midda ayagu ay nagu hayaan ay nagu saaciidinayaan intaba nagu fiirsanaysay laakiin waxaa timid marxalad kale waxaa maanta timid marxalad kale oo ah markii la arkay dalkayagu inuu haddii ilaah ku yidmaayo heeweyga haddii ilaah ku yidmaayo dadnimada iyo damiirka dadnimada markuu dadkayaga iyo dalkayagu ay yeesheen oo damiirkoodu toosay oo dadnimadoodu toostay oo hoggaankoodu toosay
ayay dunidu waxay kaliftay inay marka haddii ilaah ku idmaayo iyaduna ay isbedesho sababtoo at least waxaynu gaarnay heer ah waxaynu soo gaarnay halkii shalayto aynu ka ahayn haddii ilaah ku idmaayo kuwa aan waxba diidi karin kuwa haddii ilaah ku idmaayo aan cod weyn lahayn kuwa haddii ilaah ku idmaayo aan muujisan karin waxa ay diidayaan iyo waxa ay nacayeenayaan midna laakiin maanta aanba tabar yaraano awoodeennu ha hooseyso tabarteenna at least laakiin waxbaa inoo kamay oo ah waxaynu baranay kelmad ah inaynu oran karno wax maya sidaan ma aha sheekh saan ma aha ma yeelayno lama anfacdo sovereigntigeedna iyo madax banaanideenna iyo qayimkeenna iyo dalkeenna iyo ciiddeenna iyo calankeenna midna ma anfacdo arrinkani mana aqbalayno inaynu nidhaahno annagoo og tabarteenna iyo inta ay tahay taas ayaa marka waxay kaliftay in dunidu laftirkeeda marka isbedel ay samayso oy aragto haddii ilaah ku idmaayo dad soo jeeda markaad adigu marka aad tilmaamanayso waxa aad doonayso oo wanaagaaga marka aad adigu tilmaamanayso ood falanayso waxa xumaantaada iyo dilidaada ahna aad diidayso qofka kula macaamilayana wuxuu markaa u soo istaagayaa waxa adiga marka aad diidayso oo dilidaada iyo qabkaaga iyo sharafkaaga halaynayana inuu dib uga joogsado ilaan kama yeelaysid oo kama ogolaanaysid waxa haddii ilaah ku idmaayo wanaagga ah oo isagana interestigiisa adigana dantaada ahna inuu kaala shaqeeyo horta taasaa timid maanta marxaladaasaa timid waxaana keenay waxay tahay waa transparencyga waa haddii ilaah ku idmaayo leadershipnimada waa haddii ilaah ku idmaayo aaminaada waxa keenaya waxaa weeye haddii ilaah ku idmaayo wada shaqaynta waxa keenaya haddii ilaah ku idmaayo hayweyga rasmiga ee la fulay ee dowladnimada ah ee hore u socodka ee ummadda soomaaliyeed iyo hagideeda iyo danteeda iyo maslaxadeeda uqumida ah yaa keenaysa waxaa keentay in ummadda soomaaliyeed aan laga shaqaysan ee loo shaqaynayo ummadda soomaaliyeed inaan laga shaqaysan ee loo shaqaynayaa keentay waxaa keentay haddii ilaah ku idmaayo dan guud mooye inaan dan gaara laga wada hadlayn baa keentay marka sidaa daraaddeed waxaasoo dhan waxaa kalifaya waa intaas weeye marka haddii hogaankii ama mas-uuliyiintii qaranku ay intaa inoo muujiyeen dadka soomaaliyeedu maxaa inaga marka danteennada ah soomaalida waxay ku maamaadaa far keliya fool ma dhaqdi soomaalidu tiraahdaa yani far keliya yani hogaanka dalka waa shaksiyaad weye waa tiro yaroo kooban weye waa boqolaal weye laakiin inagu waxaynu nahay milyano dalka iska leh waxaynu nahay ummad 15 milyan gaaraysa oo dalka iska leh hogaanku marka ama haddii ilaah ku idmaayo dowladda ama howlwadeenada dowladda min madaxweyne prime minister ilaa golo baarlamaan ilaa golo wasiir ilaa haddii ilaah ku idmaayo gobolada iyo hogaamada gobolada waxoo dhan ba haddii ilaah ku idmaayo waxaa weeye wax haddii ilaah ku idmaayo 0.0000001% ka yar far keliya marka fool ma dhaqdo soomaaliya inaga marka waajib baa ina saaran haddii intaa la muujiyey marka waxaa ka dhalanaya marka haddii iyagu waajibkooda guteen in inaga haddii ilaah ku idmaayo waajib ina fuulayo in inaga waajibna fuulayo si aynu u helno xuquuqdayada aynu u helno qofka soomaaliga xuquuq buu leeyahay waajibna waa lagu leeyahay marka goormaa xuquuqda la helaa wey marka xuquuqda waxaanu heli karnaa markaynu waajibkeena gudano oo waajibkeena muxuu yahay inaynu haddii ilaah ku idmaayo abuurno dhaqaale inaynu abuurno dowladu ma jiri karayso ma socon karayso haddaysan dhaqaalo lahayn dhaqaaluhuna meel kale kama yidaada resourcku waa bini aadamka ay dowladaasu leedahay wey tirada bini aadamka ay leedahay iyo tayadiisa wey resourcku dhaqaaluhu halkaas wey meel kaleta kama yimaado sidaa daraaddeed xuquuqda waajibkeena aynu gudana si aynu xuquuqdeena u helno oo muxuu yahay waajibkeena marka koobaad horta inaynu u saldhigno nabadgelyada dalkeena inaynu u saldhigno nabadgelyada dalkeenuna waxay u saldhigmaysaa oo saldhigeedu uu ka bilaabanayaa inaynu ummadda soomaaliyeed haddaynu nahay aynu iscafino marka ugu horeysa oo dadka soomaaliyeed ay iscafiyaan oo ay walaaloobaan oo haddii ilaah ku idmaayo maslaxadda guud oo haddii ilaah ku idmaayo caamka oo ina wada anfacaysa aynu wax walbaba ku baysgarayno wiil waa naga soo dhimanayey qabaa'il waa isu diriraynay qabiil waa isu diriraynay waa isu soo leynaynay waxba inooguma kordhin haba yaraate wax inoogu kordha ma jiraan wiilalbaa inagaga dhintay inagaga baaba-ay inagaga tegey qabri aynu u geynay hooyo ku gablantay gabar ku nimbaashay awlaada ku aababooyday wax haddii ilaah ku idmaa aynu kasoo dheefnan saakana weli meeshii baanu taagana waxaa timid marxalad kaleeto
oo ah ideolojiye inaynu isqarxino oo kuwana na qarxiyaan kuwana haddii ilahay kuud maayo la qarxiyo oo la baabi'iyo kuwa aanu dilayno oo kuwa na qarxinayana waa wiilashanadii oo baaba'ahaya kuwa ay qarxinayaanna waa wiilashanadii oo baaba'aya wax inooga soo kordhay lama arko meeshanadii unbaanu taaganay halkanagii unbaanu taaganay waxaa xala marka ugu horeysa kow ummadda soomaaliyeed inay iscafiso nabadgelyada si aynu salka ugu dhigno aynu iscafino kadibna aynu gacanta ku qabanno waxaa nabadgelyadeenna wax u dhimahaya aynu gacanta ku noqono oo muwaadin kasta oo soomaaliya uu noqdo askarigii dalkan difaacaya iska lahaa inuu asagu noqdo macnaheedu maaha inaad askari tahay macnaheedu maaha inaad boliis tahay macnaheedu maaha inaad military tahay macnaheedu maaha inaad asluub tahay macnaheedu maaha inaad nabad sugi tahay laakiin dalkaanaad iska leedahay muwaadinkii iska lahaabaad leedahay kii ku noolaabaad tahay kii ku ilma dhalayay baad tahay kii awlaadiisa ay dhex deganaayeen baad tahay kii haddii ilaahay ku ilmaayo nacfisanayay baad tahay kii dhaxalkiisa iska lahaabaad tahay ubadkaagaana iska leh sidaa daraaddeed aynu u abuurno ubadkayaga nabadgelye aynu u abuurno marka koobaad marka labaad marka aynu nabadgelyada salka u wada dhigaynano aynu ku garab wadno oon garabkana haddii ilaah kuudmaa ku wadno gacanna aynu nabadgelyada kaga shaqayno gacanna aynu dhaqaalaha dalka dhago aynu ku dhisano oo aynu bixino cashuurta aynu bixino cashuur la-aani waa qaran la-aan wey cashuur la-aani waa qaran la-aan wey sidaa daraaddeed cashuurta aynu bixino si haddii ilaah kuudmaa aynu u helno xuquuqdayada aynu u helno oo xuquuqdayadu maxay tahay xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed kow waa inuu helaa cadaalad marka koobaad waa inuu helaa cadaalad marka labaadna waa inuu helaa sinaan marka saddexaad waa inuu helaa caafimaad lacag la-aana marka afraad waa inuu helaa haddii la waxbarasho lacag la-aana marka shanaad waa inuu helaa haddii la kuidmaa infrastructure iyo wadooyin uu hoygiisa iyo guryihiisa uu ku tago oo si haddii la kuidmahayo naxariis iyo nabadgelya iyo dhibaato la-aana uu ku gaaro gurigiisa meel kasta uu ku yaallo dalku meel kasta uu kaga yaallo inuu gurigiisa ku tago 2 saacadood oo waddo loogu dhiso in haddii la kuidmahayo horumarka kalluumaysiga iyo soo saarkiisa iyo khayraadka badda haddii la kuidmahayo lagaga faa'iideeyo oo tababaradiisa lagu sameeyo oo ardaydiisa lagu soo saaro oo mudakariintiisa lagu soo saaro si dhaqaalahaaga u kobco in beerahaaga iyo horumarintooda iyo infrastructurekooda iyo grash program wixii la oran jiray oo kaleeto in la soo celiyo iskaashatooyinka soomaaliyeed ee beeraha in la soo celiyo waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan marka aynu bixino cashuur ayaynu xuquuqahanaga aynu heli karaynaa sidaa daraaddeed muwaadinka soomaaliyeedu dalkaani dowladdaanu ma leh farmaajona dalkan iskama laha xasan cali khayrana iskama laha haddii ilaah ku idmaayo golaha baarlamaanku ma leh golaha wasiiraduna ma leh muwaadiniin annaga nala mida wey keliya waxayna dheer yihiin waa dad aynu dirsanay oo shaqaalaha oo mishaar aynu siino qofka shaqaalaha haddii aad dirsato oo aad shaqo u dirsato laakiin imkaaniyaadkii uu shaqada kugu qaban lahaa aadan u dhiibin shaqo kuuma qaban karayo shaqo qurux basan kuuma qaban karayo tusaale ahaan haddii aad tidhaahdo guri ii dhis nin injineera ama shaqaale ah aad tidhahdo cimaarad dhowr iyo 50 dabaqa ii dhis oo aadan haddii ilaah ku idmaayo aadan dhaqaalihii aadan siin ku bixi lahaa aadan materiaalkii ku bixi lahaa aadan siin oodan qalabkii ku bixi lahaa aadan siin laakiin aad tidhahda shaqaalaa tahay ii dhis keliya wuxuu awoodaa inuu kuu sawiro 50 iyo dhowrkan cimaaradood naqshadaana yeelan doontaa intaasoo albaabadooda yeelan doontaa muraayadaha aynu gelinayno waa noocaas mutuleelkoodu waa noocaas musqulahooda quruxdaas yeelanayaan qaabkaasaa wiishkeeda u shaqaynaya wax qurux badan oo sawirhu ku tusaya laakiin weli waxaa maqan intaas unbuu ku tusaya laakiin weli waxaa maqan haddii ilaah kuidmaayo materiaalkii baa maqan haddaba maanta waxaa jooga haddii ilaah kuidmaayo naqshadii baanu haynaa naqshadii ayaynu haynaa laakiin materiaalkii baa loo baahanya materiaalku muxuu yahay waa shacabka soomaaliyeed wey oo inta aan soo tilmaamay garta weeye nabad iyo nolol baan leeyahay ummadda soomaaliya cisi iyo sharaf allaha ku noolayo dadka soomaaliya intaasaan kula dardaarmaya aynu haddii ilaah ku idmahay u soo jeesano dalkayaga dadnimadayada sharafkayaga karaamadayada inagoon haddii ilaah ku idmahay ku taageerayn ku ammaanayn ugu roonaanayn haddii ilaah ku idmahay haddii ilaah ugu dhowaanayn ku saciimayn farmaajo khayre haddii ilaah ku idmahay golo baarlamaan golo wasiiro iyo mas-uul soomaaliyeed annagoon haddii ilaah ku idmahay u danaynayn maslaxadayada weeye waa dantayada waa sharafkayaga waa karaamadayada
waa jiritaankayaga waana dhaxalka ubadkayaga kusoo dhawow gentleman. waad mahadsan tahay mar labaad saaxiibkay ama walaalkay master dalal iyo bulshooyinta soomaaliyeed ee bartaan naga daawanaysa dhammaantiinba waan idin salaamayaa. waxaan halkaa arkaya xoogaa waxaan akhrisanayay dabcan commentiyada waan yaro eegayay. dabcan dadka qaar waxay su-aal bay soo weydiinaya cali khaliif iyo faysal calwaraabe. cali khaliif iyo faysal calwaraabe waa muwaadiniin soomaaliyeed aynu soo ducayno. madaxweynahooda iyo dalkooduna waxa weeyaan waa soomaaliya. madaxweynahooduna oo duniduna u aqoonsan tahay legitimanka ah ee maanta calanka soomaaliyeed hoos fadhiisan kara. qolaba calankeedu waa cayn, inaga keenu waa cirka oo kale. waa madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo. waxyaabaha riyooyinkana way dhammaanayaan. duniduna maanta iyada laftigeedu aqbali mayso soomaaliya qoqobkeeda iyo qabyaaladeeda iyo kala gogoyda. dunidaaba tiri no. waayo that time waqtigii madoobaa maalmihii madoobaa maalmihii iftiinka imika loo gudbay maasha allah. dalka iyo dalkuna wuu guuleysan doonaa. shirkii maantana wuxuu ahaa guul. qofkii dhinaca positiveka wax ka eegaya horta qabyaaladaystu iyo ka had iyo jeer isagu jecel xumaha halkiisinbuu taagnaanaya. isagana waynu ducaynana. waayo waxa liidnimoba ah qof dalkiisii iyo qarankiisii caayaya oo laga yaabo inuu qaxoontibe ku yahay qurbahaasoo ku dacalbasraya. waxaa isweydiin mudan markaad sinjigaaga soomaalinimo iyo horumarka soomaaliyeed aad diidayso horta who are you maxaa tahay? waa mucaarid. dadka qaar waxay leeyihin adiga oo dabcan war mucaaridka constructiveka ee wax dhisaya lama diidana. mucaaridnimaduna maaha waxa la dumiyo. mucaaridnimada soomaali way naga khaldan tahay. mucaaridnimadu ta saxda ee positiveka waxa weeyaan waxa ha la wanaajiyo ha laga sii horumariyo. faraska waxaa usha loogu dhuftaa inuu orodka kasii badiyo. maaha farasku u dheeraya mar kastaba, laakiin dhangadan ama ushan qolaba soo taqaano faraska lagu dhuftaa waxa weeyaan horaha usii socdo. laakiin maaha ha la birayo faraska. mucaaridadeena maanta waxaa u egtaad moodaaba inay tahay faraska ha la gowraco oo micnaheedu tahay qarankaba ha la baabiyo iyadoo lagu soo gabanayo qabiil iyo reer hebel maaha reerkayga ila mid maaha. war qarannimo iyo qabiil kala qiimo badan. qabiilku waa litacaarafu. qof kastoo soomaaliyaba allaha raxmaankaabaa u qadaro dee haybuu kasoo jeedaa. laakiin waxbaa jira mideeya. waxaa mideeya qarannimada iyo sinjiga aan sal guurayna soomaalinimo. kaasu markuu guulaystabaana shaksi kastoo soomaaliya uu guulaysanaya. kuwa laftigooda xukuumadda taageersan waxaan leeyahay bilaa calaykum idinka laftigiinu marka wax la saxayo qof kale war halkaa ha la wanaajiyo halkaa ha la fiicnaysiiyo oo sidaa iyo arrimaha yaan la fogeyno la odhan ha inta saflaboodnimo yaana la yaman. waayo waxa la dhammaan rag waa muciyaafkood ama ummadan sida farahaas aynaan u sinayn ayaa dadkuna aanay u sinayn. qof baa si kale wuxuu arki karaa oo hadduu doono si khaldan wuxuu arki karaa. ha loo dulqaato iyadoo la eegayo danta caamka ah ee guud sida dunidu ku horumartay waa caynka. dunidan waxaa ka jira yurubiyaankan horumaray qaar gebigoodaba reesiiso iyagu necebba kalarada kaleba ama diimaha kaleba haddana way iswataan way wada socdaan. inagana soomaalida laftigeeda waxaad moodaa mid la soomaaliya oo la diina oo la sinjiya oo la midaba inuu ku diido isaga laftigiisu ama hayb ama kelmad uu yidhi uu qarannimadaba uga saaraba ha ka saarin ha la soo dhaweeyo. anigu haddana cabdisalaan jitilmaanahay maasha allah horta ducadii madaxweynahana waa soo qaato dee ul amrigu way duceeyaan waanan ku faraxsanay. aniguna dalka waan u duceeya isagana ducadiisii maasha allah way soo raacday. maantana guul iyo gobonimo ay halaa ka dhacday. raganimadu iyo guushuna waa iyadoo loo samro. raganimaduna marka laga raganimada waa caylaa dumarkaa ku jiray waa cabaaro cag hadhowka lagu sii xejiyo. mar labaad iyo mar saddexaad baan u hambalyeynayaa howladayaashii la socday madaxweynaha qaranka waan uga baxaya walaalkii mardhow. sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa bulshaweyntii soomaaliyeed eena berber istaagtay. micnaheedu ma aha inaad aniga iyo midnimo qaran taageersanaydeen wanaaggaa taageersanaydeen iyo gobonimada noolaada. waa mahadsantahay mr gentleman mar kaleeto. hadal halmaan kuma jiray soomaalidu tiraahdaa. hadal halmaan kuma jiro. runtii mahadcelintii halkan aan ka gudbinaynay waxaan si mug leh oo haddii la ku yidmaayo qarannimo ah soomaalinimo ah walaalnimo ah howlkarnimo aanu ugu mahadcelinaynaa. sidoo kaleeto safaaradeenna iyo howlwadeenadeenna iyo safiirkeenna mudane cali fiqi
howlkarnimadii iyo dadaalkii iyo qarannimadii iyo haddii ilaha kudmaa u shaqayntii haddii ilaha kudmaa qaranka soomaaliyeed iyo hoostigarayntii waftigii ballaarnaa ee soomaaliyeed ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed sida uu soo dhaweeyey sida haddii ilaha kudmaayo uu waajib qaran u gutay sida haddii ilaha kudmaayo uu haddii ilaha u agaasimay sida uu uga shaqaynayay deegaankooda hoygooda haddii ilaha kudmaayo serviskooda ka warqabkooda mas-uuliyaddu ay ku dhehnayd kartidu ay ku dhehnayd wadaniyaddu ay ku dhehnayd dal jacaylku ay ku dhehnayd aada iyo aada iyo aada baanu uga mahad celinaynaa laa shukri cala alwaajib baanu leenahay inkastuu waajib saarnaa u yahay haddana shukriga lagama tago qofkaan aadanaha u shukrin allana uma shukriyo sidaa daraaddeed walaalkeen aada iyo aad buu umahadsan yahay waa ka xumahay inaan haddii ilaha kudmaayo gadaal aan haddii ilaha kudmaayo kasoo dhigay waxay ahayd inaan horey kasoo mariyo laakiin hadal halmaan kuma jiro sidoo kale waxaan mar labaad u mahad celinayaa howlwadeenadii kala bedelnaa ee ugu horeeyo walaalkay haddii ilaha kudmaayo cali yaasiin aadan gurbe oo haddii ilaha kudmaayo howlkar ahaa bulshada soomaaliyeed iyo haddii ilaha kudmaayo madaxweynaha soomaaliyeed iyo isku xirkoodii iyo haddii ilaha kudmaayo agaasinkoodii iyo dadka soomaaliyeed iyo shaqayntiisa aada iyo aad sidoo kale agaasima cabdinuur agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyed ama madaxtooyadaba aan idhaahdo sidoo kaleeto walaalkeen haddii ilaha kudmaayo cali daahir ciid raggaas haddii ilaha kudmaayo kartida lahaa ee dadka soomaaliyeed u shaqaynayay ee isku xirka wanaagsanaa ee dulqaadka badnaa ee samirka badnaa ee adkaysiga badnaa waxaan leenahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin mas-uuliyaddiina iyo hawshiina aada gudateenna inkastoo waajib idin saarnaa ay tahay haddana waanu idinkugu mahad celinaynaa dhammaantiin waayo waxaynu arkaynay oo muuqday bay ahaayeen waanad ku mahadsantihiin shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay dhammaantood walaalayaal aynu garbaha isqabsanno aynu haddii ilaha kudmaayo u shaqayna dalkayaga qof walbaba mas-uul weeye si haddii ilaha kudmaayo aynu xuquuqdayada u helno aynu gudanna waajibkeenna xuquuq lama helo ilaa qofka muwaadinka uu guto waajibkiisa waxaan kusoo gabagabaynayaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin haddiisu walaalka cabdisalaan uusan ku darayn walaalka cabdisalaan baan u daynayaa mar kastaba waxaan ku darayaa horta waxa weeyaan cabdisalaan gentleman laakiinse caawa waxaa ii dheer iyo maanta oo dhanba dee karaamadii madaxweynaha iyo ducadii iyo fariintii gaar ahaan wadaniinta soomaaliyeed waxaan idinka sidaa salaan qiimo badan gaar ahaana markan waan yara qabyaaladeynayaa bahda midnimo qaran qabyaaladeedu maaha tii reerkan saxiix reer qurac waata bahda midnimo qaran oo marwadii madaxweynaha marwada qaranka marwe Zainab iyadana salaan qiimo badan la ee barta aan u marinayo iyo madaxweynaha qarankuba ay bahda midnimo qaran iyo sidoo kale ka tagi maaye laakiin saaxiibka iga raali ahaado iyo bahda gobsoor oo yara dambeysii xagga dama yara dhigtay oo xagga horaan soo dhiganaya iyo saaxiibkii Cabdillaah Boodhar isagoo aska bahda midnimo qaran iyo gudoomiyaha midnimo qaran Jamiila Jaamac Jibriil iyo bulshooyinka Soomaaliyeed anagoo de magaciidina ma dhameystiri karaya hayba ka dhaniya qaar kale oo fara badan iyo habla haweenka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay markastaba madaxa noo saarantiin guuliyo go'nimo ragana waa yara xagga dama yara dhigtay iyagana waan ku darayaa waayo de xagga hore hadaan ragga soo dhigo marka horeba dumarku dee waa hooyooyinkan iyo walaaladeen taasuna waxa weeyaan madaxweynihina uu soo duceeyey aniga laftigaygu dadka waa nabadgeliya intaa fiican aan saafino fikirkayga iyo mabaadi'da markastaba ka hadlaya waxay isku soo beegbeegmay oo kale inta badan ilaahay ma iga raali ahaada horta weelkaabkii waan qaadnay karaamadii iyo junuudeedii baa raaciyay faransiiska ilaa up from the beginning markii ugu dambeeyo up to finaalkii wanigii waa idinka taageersanaa idinkuna way ugu soo taageerteen karaamadii baa la socota nabadiyo nololna waan raaciyay 4 sano dambana nabadiyo nolol baa qabanaysa madaxweynaha qaranka ra'iisul wasaaraha uu duceeyay cimrigan Allah raxmaanka ha u raajiyo sidoo kale aamin curadkii waa kii ugu yimi meesha la adina wuxuu dhadar cabsan muxuu isaga daayay shakhsiyaadkii personal tag weyn iska daayay mabda'ayga fikirkayga Soomaaliyeed mid weeyaan dawladda Soomaaliyeed wax ku jirta dawladnimo waatid waxa soo ka beegmay curadkii walaalkii oo de booska abigu jira foodacad oo gurigayga ugu soo booqday oo isaguna quraankii de maasha Allah madaxweynaha qaranka oo aan salaamay maadaama aan karaamadii madaxweynaha sido karaamadii shacabkana sido Muuse Biixi iyo Cabdiwali Gaas iyo arrimo nooca ahaa iyo qabiiladii waan faraan kala baxay mabda'aygaan u taaganay Soomaalinimada Soomaali mid weeyaan ama Hargeysa iyo Burco iyo Boosaaso iyo Garowe iyo waxba waa Soomaaliya taa hadii lagu qabsado iyaga ay gardaran mabda'aygaan u taaganay guriga gooniyo waan dhameeyay doodii duca soo kuma darin suuradaana kuma xidhin waan aad baan idin salaamay taas waxay ila tahay doodaas inay saacidina kugu qabsan karin war qabyaalada aynu nacno
midnimada soomaaliyeedna waa mid, dadka soomaaliyeedna waa mid, wadajirka soomaaliyeedna waa mid, iskaashiga ummadda soomaaliyeedna waa mid. cid kaaga hor imaan karta ama kugu dulmi karta ama kugu diidi karta ma jirto. soomaali waa duud dhegihii dad qureen wadane dhegihii diidana ma aha dhega laab u daloole, waa dhega hawo u daloolo weye. iminka waa arkaysaan soomaali intaasan leh uu mahadsan walaalkay master dalal qofka igu qabsada anigu weligay intaan noolahay idinkuna igu soo duceeya allah raxmaankaana waan ku ducaysanaya waan ducaynaya karaamada daanaba bilaadan baan ma sha Allah waan karaamada waxaan ku ducaynaya in Soomaaliya mid noqoto oo sharafteedii iyo qarannimadeedii allah raxmaanka soo celiyo aniguna aan weligay u taagnaado midnimada iyo wadajirka iyo la dagaalanka qabyaaladda. aamin kuliyo gobonimo isna cafin ma sha Allah. walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin, aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa. intii haddii ilaahay ku idmahay midnimo qaran ahayd ee dunida daafaheeda iyo dacaladeeda joogtay ee xiriirka nala soo samaynaysay ee haddii ilaahay ku idmahay aadka haddii ilaahay ku idmahay noola soo xiriiraysay, waxaan idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. insha allahu tacaala guusha ummadda soomaaliyeedna waa guulaysatay ummadda soomaaliyeed. meel kasta oo aynu joogno waynu guulaysanaynaa. dadka soomaaliyeedna guushoodu meel kasta haddii ilahay ku idmahay ay joogaan guushu waa mid ay harsan doonaan insha allahu tacaala. aad iyo aad baan idiin salaamay. waan ka boobay oo runtii waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed walaaladay dabcan dhamaantiin wada jecel saad ii jeceshiin baan ana idin wada jecel walaalayaal. telefoonka runtii WhatsApp-ki waan tuuray xogaa dee anigoo dhamaantiinba ma sha Allah oo ummadda Soomaaliyeed dee dabcan allaha daayo qaranka Soomaaliyeed, dawladana allaha guuleeyo. aamin. dadkuna runtii qarannimada iyo dawladnimada iyo bay ugula socdaan iyo qalbi wanaagsanaanta. shanta qaarood baa laga soo garaacayaa markaa walaalayaal waqti insha Allah tacaala waan saleynaa. laakiin inta ay gaar raali ahaada haddii Allah raxmaanka aan gusmo waa raali gelin dadkan telefoonka qaban waayo telefoonkiina way ugu farabatay. waxay la tahay markaan ummadda Soomaaliyeed inaynu leenahay waa mahadsantahay. nabad iyo nolol aynu mahad celinayno. Soomaaliya nabad iyo nolol, ummadda Soomaaliyeed ha noolaato. waxaan kusoo qatimayaa ducadeedii ugu dambeysay oo ahayd nabad iyo nolol Soomaaliya allah nooleeyo. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.